carabtii waxay lacag haysato waa laga qaatay waxa dhacayana waxa lagu tilmaami karaa qiyaano weyn oo lagu sameeyay shucuubta wadamada carabta gaar ahaan kuwa qaliishka Sacuudiga Qatar iyo Imaaraadka Carabta aniga sidaa kuma lihi Trump ayaaba afkiisa ka sheeganaya wixii dhaqaale wadankaas wadamadaas yaala inuu qaatay kadib waraysi wariye ka tirsan BBC-da uu la yeeshay xilli uu ka dhoofay dalka isu tagay Imaaraadka Carabta halkan aan kaaga shidaya waraysiga qayb kamid ah Mr. President, are you disappointed in the level of the delegation that the Russians sent to Turkey? I don't know anything about it. I'm not disappointed in waxaan rabaa qaybtan inaan kuu sheego Trump waxa la leeyahay wax niyad jab ah miyay kugu abuurtay in uu iman waayo ninkii Vladimir Putin ahaa wadanka la yiraahdo Turkiga kana qayb noqon waayo wada hadalka Ukraine iyo ay yeelanayaan ninka la yiraahdo Putin dawladdiisa Ruushka laakiin arinta wixii la weydiiyay waxaan ahayn uu ka jawaabay halkan waa meesha la rabo carabtu inay ogaato muxuu leeyahay marka anything. Who are you from? BBC News. I'm not disappointed. Why would I be disappointed? We just took in $4 trillion and he says, are you disappointed about a delegation? I know nothing about a delegation. I haven't even checked. Look, nothing's going to happen. عاد يا ورك wuxuu leeyahay niyad jabka aad ka sheekeynayso maxay tahay xagee ka imaatay ayuu leeyahay wariyihii markaas wuxuu leeyahay waxaan ka imi idaacadda BBC-da kadib wuxuu leeyahay war niyad jabka iyo waxa aad ka sheekeynayso anigu ma aqaan 4 trilyan ayaan carabta kala tagayaa marka ina wax kale ay weydiisaba ma noqon lahayn maanta waxay lacagteena ay weydiiso xilligaasi kaabiga ayuu u taagan yahay diyaaradiisa waxa uu rabaa wadanka Mareykanka inuu u duulo waxna uu gabagabeeyo booqashadii 4 maalin qaadatay arintan sheeko weyn ku dhex jirta marka falcelin weyn ka timid warbaahintii Shiinaha qaadatay warbaahintii kala adduunka qaadatay xitaa kuwa Mareykanka falanqeynaya xog baan idin kaga hayaa sheekadan oo waliba xiiso gaar ah leh waan idin la socodsiin doonaa dhinaca kale markii aan fiiriyo qodobada aan idin hayo ninkii Kim Jong Un ahaa Koreada Waqooyi waxa uu isagana isku diyaariyay dagaal kale oo xoog leh waxa uu kormeeray ciidamadiisa goobo gantaalaha lagu sameeyo ee shirkado kala duwan waxa uu leeyahay wax kale leedan kama rabo dagaal ayaad isku diyaarinaysaan dagaalkaasi meesha lagu qaadayo annaga ayaa idin sheegi doona inta markii uu yiri kadib afayeen u hadlay aqalka looga arrimiyay dalkaasi Koreada Waqooyi ayaa waxa uu yiri innaga markasta suuragal ma tahay inaan ka dhax muuqano listiga wadamada Mareykanka uu saaro inuu safarka ka carqaladeeyo waxa uu leeyahay taasi cadaalad ma hadaba dagaalka ma waxa uu noqon doonaa mid Mareykanka ka dhanay Koreada Waqooyi isku diyaarinayso Kim Jong Un ninkan muddada talada jooga ee madaafiicda ku xaragooda iyo diyaaradaha dagaalka ee ciidamada jooga ma waxa uu rabaa in Koreada Koonfureed uu dagaal adag isna ku qaado xagee wax u socdaan warbaan idinka sii doonaa arintaasi waxa su'aali ka taagan tahay haddii aan dhinaca Suudaan fiiriyo Xamidati iyo sidoo kale General Burhan dagaalkii gacan ka hadalka ahaa ee askartu is horfadhiyeen waa laga tagay dagaalka tiknoolajiyada ayaa loo baxay yaa adkaan doona labadooda meelo kala duwan ayaa la qaraacay 4 hadaf oo waaweyn oo arinta ku saabsan ayaan idin sheegi doonaa inta aan wada joogno sidoo kale daawadayaal waxa barnaamijka ku ogaan doontaan waxyaabaha maanta ka socda magaalada Baghdad ee caasimadda wadanka Ciraaq madaxda carabtu ma shirayaan mase inay isku wada meel ku wada ooyaan ay u yimaadeen maxay ka leeyihiin qasa General Sisi ninka Masar hogaamiya ayaa hadal la yaab la meesha ka jeediyay waxa uu leeyahay Israel Mareykanka oo kaliya ayaa naga qaban kara iyagana u baahanahay in arintaasi ay wax ka yiraahdaan waa taxanaha labaad ee barnaamijka Barrow Show iyo caawa fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay waa 17 bisha May sanadku waa 2025 maalinimo sabti ah soo dhawaada ayaan idin leeyahay ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyo dhinaca
iyo Mareykanka. ninkii Trump ahaa waxa uu qarsan waayay in lacagtii carabtu ay lahaayeen oo dhan uu qaatay kadibna warbaahintii ayuu ku faanay waxa uu leeyahay maanta aniga wax kale leeyma weydiin karo waxaan wataa 4 trilyan oo aan carabta ka soo qaatay ujeedadeeduna waxay tahay wadankayga inaan ku sameeyo horumarin wanaagsan iyo sidoo kale shaqo la'aantii ka taagneyd Mareykanka inaan meesha ka saaro. Trump ayaa hadalkan jeediyay xilli uu ka dhoofayay garoonka dalka isu taga Imaaraadka Carabta ku yaalay oo diyaaradiisa Air Force One ay taalay. hadalkan markii uu sii daayay waxa uu abuuray saameyn aad u ballaaran waliba xitaa wariyihii ayuu aad ula kajamay oo ku yiri adiga xaggee ka timi. su'aalahan ayaa durba waxa bilaabay dadka carabta ah ee wax falanqeeya in ay yiraahdaan waa dhacanahay madaxdii carabta iyo duubabweyntii boqorada ahaa waxa ay sameeyeen wax aan la qaadan karin oo aan la aqbali karin. haddaba Trump wadamada lacagaha uu ka qaatay maxay kala yihiin? wadanka Saudi Arabia oo kaliya waxa uu ka qaatay 600 bilyan oo dollar. waxa uu yiri waxaan idin sameyn doonaa arrimo la xiriira dekaa sanaaciga waxa la yiraahdo ama garaadka macmalka ah ChatGPT iyo wax la mid ah OpenAI oo kale ayaan idin sameyn doonaa taas oo dhinaca tiknoolajiyada ayaan idin ka hormarin doonaa. waxa uu sidoo kale sheegay dhinaca difaaca iyo gaashaandhigga inuu garab ka siin doono. marka Sacuudiga oo lacagta bixiyay oo 600 bilyan oo miiska saaray Trump ma qancin. waxa uu yiri Maxamed bin Salmaan intaan in ka badan ayaan runtii ka filayay waana filayaa inaad 1 trilyan gaarsiin doonto lacagtaasi. Maxamed bin Salmaan oo madaxa gundhinaya ayaa arintaasi qaatay oo yiri waan sameyn doonaa mudane. inta markii ay dhacdo kadib ninkii Trump ahaa waxa uu yimid dalka la yiraahdo Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani ayuu u yimid waa hadal dheer ayaa dhacay kadibna waxa loo sheegay in amniga wadankaasi lagala shaqeyn doono iyo horumarintiisa. odaga waxa la yiri maxaa haysaa Sacuudiga 600 bilyan ay bixiyeen maxaa ku dari kartaa? isma waalina wuxuu dhahay times 2 ayaan leeyahay lacagta ay bixiyeen ayaan laba ku dhufanayaa. sidaa daraadeed mudane aniga waxaan ku hayaa lacag dhan 1 trilyan iyo 200 bilyan oo dollar ayaan ku siin doonaa. marka Sacuudiga wuxuu bixiyay ayuu odaga laba laabay. Trump waa filo waay arinta madaxa weynaaday wuxuu yiri lacagta 10 bilyan oo kamid ah waxaad noogu maalgelisaa saldhigga ciidamadeena ee bariga dhexe ugu weyn halkaas ayaan u baahanahay inaad garab naga siiso. odagana wuxuu yiri waa yahay. Trump saldhiggii uu tagay waa kii ku qodbayo hadal weyn yiri. inta markay dhacday ninkii Maxamed bin Saayid ahaa oo meel kasta la taagnaa dagaalka iyo rabshadaha haddii ay Suudaan noqon lahayd haddii ay Liibiya noqon lahayd haddii Soomaaliya qaybo kamid ah oo wax ka sameyn lahaaba waxa la weydiiyay saaxiib soo dhow Sacuudiga 600 bilyan bay bixiyeen 1 trilyan iyo 200 bilyan waxa bixiyay dawladda Qatar ma ka hoos maraysa. markaas wuxuu yiri hadiiba dawladahaas ay lacagtaas ku ogolaadeen mudane Trump ma jirto si aan nimankaas uga hoos mari karo. 1 trilyan iyo 400 bilyan ayuu bixiyay. si lamida gaashaandhigga iyo caqliga macmalka ah iyo tiknoolajiyada ayaa loo horumarin doonaa sida Trump uu sheegay. marka arintaasi ay dhacdo kadib waa marka Trump waraysiga aan idin maqashiinay qaybtii hore barnaamijka laga qaaday waxa uu yiri arinta aad sheegaysa meel iska dhig laakiin waa ka jawaabay arintii Putin. waxa uu yiri Putin nin galasho liita maaha waxa uu imaanayaa goorta wada hadalka uu dhacaya mooyaane markaan aniga meesha tago. ilaan waxa la yiri ragga qowrta ah iyaga is yaqaana. marka Putin ma ahan uu yiri majaha inuu la fadhiisto madaxda meesha ka maqnayd lacag baan raadsanayay saaxiib aniga meesha tagaya Putin waa imaanaya anaana u yeeraya. marka Putin arintaasi waa sameynaya ayuu yiri waana midda ugu ballaaran ee hadda dooda ugu adag ay ka taagantahay. inta markay dhacdo waan filayaa inaad fahantay in Soomaalidu ay tiraadeen ninkii xoog weyn ay xaajo u falantaa. Trump arintaas ayuu ku dhaqaaqay heer waxa uu gaaray oo yiraahdo 4 trilyan in haysta madaxa furan lama hadli karo. hadalkii Trump waxaad moodaaba Putin inay ogaayeen oo leeyahay saaxiib carabta soo baaranaya ay ogow. maanta aqalka Kremlin-ka ee wadanka Ruushka ayaa hadlay.
ninka la yiraahdo Dmitry Peskov oo ah afayeenka aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa waxa uu ka hadlay sababta Trump ninka la yiraahdo Putin oo iman waayay goobtii wada hadalka ee Istanbul ee dawladda Turkiga ay garwadaanka ka ahayd waxa uu yiri Putin meesha waa tagaya laakiin waa marka heshiisyo waaweyn la saxiixayo hadda dad kooban iyo guddiyo farsamo ayaa la diray ujeedadeeduna waxay tahay wax aad u wanaagsan maanta oo sabti ah ayuu la hadlay warbaahinta waxa uu yiri innaga waxaan diyaar u nahay wada hadallada inaan sii wadno oo aan sii qorsheyno isla markaana natiijooyin wanaagsan ayaa durbaba laga hayaa u qaybsanaha maalgashiga Ruushka ninka lagu magacaabo Kirill Dmitriev ayaa isla maanta oo sabti ah ku tilmaamay wada hadalka Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul ka socday in natiijadooda ay qurux badan tahay saddex khiyaar ama saddex hadaf oo waaweyn la isla gaaray in laga shaqeeyo ko in la isweydaarsado maxaabiista iyo in xabad joojin la isla qaato goor ay noqotaba iyo waliba in wada hadalladu ay sii socdaan taas oo qayb ka noqonaysa xasiloonida iyo wadajirka nabadda ee deegaanka sida uu hadalka u dhigay marka maadaama uu 4 bilyan baan wataa 4 trilyan baan wataa hayla hadlin wariyo oo Trump leeyahay ninkan wuxuu leeyahay maalintii heshiis la gaarayo oo qalin wax lagu saxiixayo kaliya ayuu Putin tagaya Istanbul waxa ka hooseeya ma soconayaan ayuu hadalka u dhigay adduunyada marka dawladihii waaweynaa saaxiibayaal waxay u muuqanayaan hadda inay isku arkayaan cidii xoog leh ay xaajo u falantaa wati aan ku lahaa hogaamiyaha Kooriyada waqooyiga Kooriya Kim Jong Un ayaa maanta oo sabti ah waxa uu bilaabay in uu kormeer ku sameeyo ciidamadiisa waxa uu ku yiri waxaad isku diyaarinaysaan dagaal weyn oo faraha looga gubtay dagaalkaasi waxa uu yahay mid aan rabno inaan ku soo celino horumarka wadankeena sharafta Kooriya ee adduunka ku leedahay iyo inaynan aqbalin wax la yiraahdo dulanimo ninkan waxaad moodaa sidoo kale inuu ka jawaabaya hadalkii Trump markii uu ka hadlayay militariga xarunta ay ku leeyihiin magaalada Qatar dalka Qatar ee Doha markii uu ka hadlayay ayaad moodaa hadda inuu ka jawaabayo waa kii Trump lahaa wadankeena wuxuu haystaa askar ku filan oo awood leh oo cid hor istaagi karta aysan jirin cid kastana waa burburinaynaa ninkan dhalinyarada marka wuxuu leeyahay dagaal ayaa la galayaa isdiyaariya cidda dagaal kale la galayana muuse sheegin waxa uu kormeera baa la yiri tababarka dhanka weerarada hawada iyo difaaca cirka waxaanu ugu baaqay dhammaan cutubyada militariga dalkaasi inay sameeyaan horumar weyn oo ku saabsan diyaarinta dagaal ayaa lagu sheegay war ka soo baxay wakaaladda wararka ee dalkaasi intii lagu guda jiray bishii May waxa uu sidoo kale kormeeray tijaabo gantaal waxa uu booqday warshad soo saarta taangiyada iyo rasaasta waxa uu sameeyay booqasho dhif ah uu ku tagay safaaradda Ruushka ee Pyongyang waxa uu sidoo kale mar kale muujiyay xulufaysiga kala dhaxeeya dalkaysa Ruushka waxana uu sidoo kale kormeeray baa la yiri tababar rasaas ridis ah oo ay sameeyeen cutubyo ka tirsan ciidamada howlgalka gaarka ah ka sameeya wadankaasi Kooriyada Waqooyi dhinaca kale Kooriyada Waqooyi ayaa campaaraysa baa la yiri wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Mareykanka kadib markii la geliyay liiska dalalka aan sida buuxda ula shaqeyn Mareykanka isla markaana aan kala howlgalin arrimaha la dagaalanka argagixisada wakaaladda wararka ee Kooriyada koonfurta Kooriya Yonhap ayaa sheegtay in waqooyiga Kooriya ay sanad walba la geliyo liiskan tan iyo 1997 afayeenka u hadlay wasaaradda amuraha dibadda ee waqooyiga Kooriya ayaa laga soo xigtay marka Mareykanku uu kordhiyo ficilada gardarrada ah ee aan loo baahnayn cadaawada u dhaxaysa labada dal ee aan xal loo helin waa ay sii kordhaysaa ayuu yiri marka way caddahay sababaha hadda muujinaya in ay dagaal isku diyaariyaan waxaan u maleynayaa halkaas inaad fahanteen dalka Ciraaqna waxa ka soconaya shirka wadamada Carabta ee 34 afar malaf oo waaweyn ayay uga hadlayaan xilligan waa koow xaaladda qasa ayay isla soo qaadayaan iyo dhibaatooyinka ka taagan iyo dagaalka ciidamada gumaysiga Israa'iil ay sameynayaan iyo xasuuqa lagu hayo shacabka Falastiiniyiinta waxa sidoo kale la isla soo qaadi doonaa xaaladda Suudaan oo hadda laga hadlayo waxa malafyada miiska saaran kamid ah arinta la xiriirta dalka Syria
iyo waliba qodobada kale ee horumarinta wadamadaasi ku saabsan. madaxweynaha dalka Masar General Abdel Sisi ayaa hadal jeediyay. hadalkaas oo marka la fiiriyo wadamada Carabtu aad moodo inaysan shiraynin ay u ogyihiin niman inta meel isugu yimid doonaya inay si wada jira u ooyaan maadaama dhibaatada gaaraysa wadamada Carabta aysan ka hadli karin. Abdel Sisi wuxuu yiri waxaan u baahanahay dawladda Mareykanka inay la hadasho ninka la yiraahdo Benjamin Netanyahu uu dagaalka joojiyo. haddii ay taasi dhacdo xaaladda gobolka ayaa isbedelaya oo dhibaatooyinka shacabka Falastiiniyiinta ayaa meesha ka baxaya. ku darso dadkii ugu badnaa ee Falastiiniyiin ayaa hadda wajahaya mushkiladii ugu adkeyd ee dhinaca nolosha. barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay waxa uu leeyahay 5 qof oo ku nool Gaza qof kamida ayaa halis ugu jira inuu baahi u dhinto. sidaas ayuu leeyahay hay'adaas leedahay. Sisina waxa uu leeyahay war annaga Netanyahu waxba kama qaban karna Trump ha loo yeero ninkan ha naga qabto. wadamada Carabta ee maanta Ciraaq ku shiraya waxyaabaha ugu waaweyn oo ay miiska soo saarayaan ayay qayb ka tahay. waa mushkilad marka weyn oo banaanka taala oo runtii u baahan in xal degdeg ah arintaasi looga helo. madax kala duwan ayaa ka hadli doonta oo la leeyahay isla khudbado isku eg ayay jeedinayaan oo waxba ka bedelnayn shirarkii ay hore u sameyn jireen. marka su'aasha taagan waxay tahay Carabta maxay bedeli karaan si kastay u shiraan haddii ay sidaan u hadlayaan oo aysan jirin hadal culus oo ay miiska keeni karaan oo ay ka doodi karaan. waa waxa hadda qubarada barnaamijyada falanqeynaya ee warbaahinta adduunka ay sharaxayaan gaar ahaan kuwa ka soo muuqanaya telefishinka Al Jazeera iyo Al Arabi Al Mayadin iyo kuwa kaleba arrintan ayay falanqeynayaan ay miiska saarayaan. halkaas ayaan uga gudbayaa shirkaasi macno badan iyo nah badan oo la sii falanqeeya malaha. arrinta u dhaxaysa Suudaan ayaa waxay tahay mid sii xoogeysanaysa. Xamidati iyo waliba Dagalo ninkan lagu magacaabay General Burhan dagaalkii tiknoolajiyada ay aad u badiyeen. magaalada Port Sudan ayaa kamid ah meelaha sida weyn loo duqeynaya oo duqeymihii ugu badnaa ay ku dhaceen 4 ilaa 7 May sida uu ku waramayo telefishinka la yiraahdo Al Arabiya ee dalka Sacuudiga laga leeyahay. haddaba meelaha muhiimka ah ee duqeymuhu ay ka dhaceen waxaa kamid ah kaydka shidaalka, garoonka diyaaradaha Port Sudan, saldhigyo ciidan, xarunta korontada iyo baqaaro hub oo ay ciidamada dawladdu lahaayeen. dawladda Imaaraadka Carabta ayaa ka dambaysa duqeymahaasi waxaana RSF-ta ay ka leedahay 4 ujeedo leeyahay duqeymaha meelahaas. in la carqaladeeyo xasiloonida meelaha amniga hadda laga dareemayo. Imaaraadku ma ogolaan nabad reer Suudaan inay helaan. in la yareeyo awoodda ciidan ee dawladda, in shacabka laga dhaadhiciyo in militariga uusan ilaalin karin qadiyada dalkooda iyo dantooda, iyo waliba in la xakameeyo meelo fog iyadoo gantaale iyo diyaarado lagu duqeynayo si xaaladdu ay u sii adkaato. weerarada waxaa laga beegsaday xarumo muhiim ah oo dawladdu ay si gaar ah gacanta ugu hayso. RSF-ta qudhooda si baan ayaa loo duqeeyo. ciidamada Turkiga ayaa aad u duqeeyay oo baabi'iyay waliba ilaa 70 ayaa Nyali meesha la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Darfur looga dilay. dagaaladu waa sii soconayaan. Suudaan Carabtuna waxay doonaysaa xal inay u helaan, laakiin su'aala taagan Suudaan cidda burburinaysa waa la yaqaana oo waliba maanta sidoo kale dagaalada ka wada Liibiya waana Imaaraadka Carabta. Maxamed bin Saayid ma awooda inay qabtaan. haddiisan awoodin Maxamed bin Saayid inay qabtaan waxba kama galaan arrintaas oo waxay u muuqataa Suudaan wadada burburka ay cagta saartay inay baabi'in doonto. aad u mahadsantiin qeyray qaybtii labaad ee barnaamijka taxliilka Barrow Show. qaybtan intaas ayaan ku gabagabeynayaa. feed wanaagsan ayaan idin leeyahay ku soo biiray YouTube-ka oo subscribe saara. aad baad u mahadsantiin.